ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya daraawiishta Galmudug iyo dadka deegaanka ayaa qawaarishta gobolkooda dhacay al-shabaab waxay kala wareegeen deegaanada Qayacad laaska cameeyay sidoo kale deegaano kale oo dhaca koonfurta gobolka Mudug dagaalkan oo ay wadajir u qaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska Danab iyo sidoo kale daraawiishta Galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa waxaa lagu dilay ku dhawaad konton ka tirsanaa horjoogayaasha iyo sidoo kale qawaarishta arxanka daran ee gobolka dhacay al-shabaab Axmed Maxamed Salaad taliyaha ururka lixaad ee kumaandooska Danab ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa cutubiyada ciidanka ay howlgalka fuliyay kula dardaarmay in dhiigooda ay u huraan difaaca dalka diinta iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed haddii xabad u dhacdo hadduu cadowgu isku dayo inuu dhabar jabin soo aado intaas aad ka balogaraynaysan haddii xabad galaan xabada markay galaan ka bacdi inaad gurmad ahaan ugu tagtaan la rabo aad idinkoo caaboon aad shaqada gashaan marka intaas la ka rabaa iyo intaas ka sii badan qof walba waxa la iska rabaa hal qof hadaad inaad saddex qof iska dhigto cadowga meesha ku jiro niman argagixisa waxa meesha ku jiro dhan waa isku keenkeen waa shanba meel kan afarba meel ka keen laakiin sida lagu sheegayo iyo sida ay meesha ku joogaan isma laha niyadna ma hayaan annagana waxa nala shaqeynayso korana laga shaqeynaa yaana ku xisaabtamin diyaarad yaana ku xisaabtamin haddaad niyadda gelido inaad diyaarado ku duqeynayso aad isku xirto hal xabo aad ka guuleysanayso ma gaartid isku day diyaaradu system ay leedahay haddii diyaaradu nala socoto system ay leedahay ha ku xisaabtama laakiin niyaddeed ha gelin qorgaagaas aakaha ah iyo beekamkaaga iyo RPG-ga isticmaal ninka meesha ku jiro intaas ka beer ma wato adayba hub kale ku sii dheeriya laakiin asagu intaasoo wataa intaas iyo geedo ku jira noloshiisa geedo ku dhammaystay waa ku silcay aakhirana waxba yaalaan adduun uma yaalaan marka aan isku dayno sidii aan intaas yarta ee meesha ku jirto anigu guuleysanayn maanta waxaan aaminsanahay ninkii kamida ee wax gaaraan ee ama dhiigiisu maanta oo daato ama ku dhaawac ama ku dhinto maalinta yawmul qiyaam inay u socoto in lagu dambi dhaafi doono rafaadkii yaraa ee soo martay iyo dhididkii yaraa iyo oonkii yaraa in ka baxay maalinta yawmul qiyaam ayuu idin qoraya miisaanka idin buuxi doona marka nin walba aamin inaad jihaad ku jirto aamin wadankaaga inaad xoreysanayso aamin nimanka meesha ku jira waa niman qawaarij waa sida diinta lagu sheegay waxay ka yimaadeen boqolkiiba 90 dad yar oo magacu Soomaali nala waa laga yaabaa laakiin aan ahayn midabka Soomaali kaliya laakiin jismiga ma ah Soomaali wuxuu meesha ku hayaa nin wadankiisa ka yimid oo halkaas ku jira jiqdaas ku jira ayuu wuxuu ka soo qaadaa wixii uu ku quudinaa raashin ayuu wuxuu ka soo qaadaa dadkaas kale ee Soomaaliyeed ee walaalkiisa la dhashay marka walaalka ma nin adiga halkaas nin ku jiro islaameed ee wadankiisa dambi ka soo galay wadamada ay ka imaanayaan boqolkiiba 99 waa gaalo wadan boqolkiiba 100 muslim ah Soomaaliya ka jiro marka ninka aaminsan in maanta inta nin islaameed oo shisheeye soo wada halkaan keeno raba inuu yiraahdo ku quudiyo jiqdaas ku hayo waa dareemi kartaa inuusan jismi ahaan naleeyahay maahane qalbi ahaan iyo wax aan intaba naga mid ma waana si diintu farta waxa ku taaganahay wada sax ku taaganahay aan aamino wadadaas aan aamino waxa waa qof walba aamin inaad jihaad ku jirto aamin inaad waxa waaye aad wadankaaga ka xoreysto aamin waxa islicinaya maanta waa hooyo Soomaaliyeed waa abba Soomaaliyeed waa waxa aad dareemaysaa waa gabar Soomaaliyeed wax dhibaateynaya intaas buu gacniin inay ku xorabaan idin ka raba dadka xorey la anaga iyo kuwa maqan waa haddii marka aan ka jiifano ma xoroobayaan sidaas u sii haysanaya marka aan isku dayno inaan xoreyno oo aan ummadaas islaamka aan ka dulqaadno nimankaas waa guuleysanaynaa dhamaanta waa guuleysanaa guula idin rajeynaa Baasha Cali Xaashi warbaahinta qaranka Qayacad.